dadka Soomaaliyeed ee u soo hayaamay dalalka dibadda oo xambaarsan dhaqan iyo suugaan mug weyn oo qani ku ah luqad aad u ballaaran ayaa markii ay u yimaadeen wadamada reer galbeedka waxaa ku adkaatay inay la qabsadaan dhaqamada ay u yimaadeen sidoo kale waxaa iyaduna ku cuslaatay dadyowgii ay u yimaadeen inay si fudud u fahmaan dhaqanka Soomaaliyeed iyo afka Soomaaligaba iyadoo ay taas jirtay haddana qaar ka mid ah dadka la shaqeeya ama deegaanka la wadaaga Soomaalida waxay aad ula dhaceen dhaqanka iyo afka Soomaaliga taasoo keentay inay aad isugu hawlaan barashada Soomaaliga عادياس يا عادي مريكان كيكا شانيو عادي مريكان قاسر وجدانيو يا توتبي قاسر وجرتيا ما توت برش نفتكيس wiil dhalinyaro isagoo ku hadla afka Soomaaliga oo u dhashay dalkaasi Mareykanka magaciisana ku sheegay Jibriil ayaa cadeeyay inuu afka Soomaaliga u bartay shaqadiisa oo la xiriirta awgeed waa maxay sababta aad u baratay af Soomaali aad baan u jeclahay xuquuqda aadamiga like hada waxaan ahay social worker waxaan ka shaqeynayaa the Confederation of Somali Community Brian Crow Center Kuyal so waxaan gargaarayaa qaxootiga Soomaaliyeed dhalinyarada carruurta iyo xuquuqda dumarka nin kale isaguna ka shaqeynay muddo fara badan isla mar ahaantaana si fiican uga hadla luqadda Soomaaliga ayaa isagoo ka sheekeynay sidii uu bartay af Soomaaliga waxa uu yiri dadka way weydeen warniyo sidee u barteen maarta afka Soomaali markaas waxaan iri dadka waa dhaxgalay maarta dumarad waa ciyaari jiray oo shaahi waa cabi jiray oo dadka waa sheekaysan jiray markaan bulubarti joogi jiray marka laga yimaado dadkan iyagu la shaqeeya Soomaaliga ee uu hawl maalmeedkooda ku qasbay inay luqadda Soomaaliga bartaan waxa iyaguna jira khubaro afka Soomaaliga ku takhasusay oo daraasad ku sameeyay muddo fara badan oo ka qoray buugaag buuga igu dambeeya waxa la yiraahdaa faaliyihi la bilkeeday buugani waa kan buugani wuxuu ka kooban yahay 105 sheeko xariira khabiirkan oo u dhashay dalkaasi Ruushka magaciisana la yiraahdo George Kapchet ayaa waxa uu helisay iyaduna gabadh u dhalatay dalka Netherland oo ay Soomaalidu u taqaan ladan gabadhaas oo muddo far badan ku mashquulsanayd afka Soomaaliga cilmi baarisna ku sameyn jirtay walaal magaca ladan waxa ii bixiyay nin Cabdisalaam Yaasiin la yiraahdo oo waqtigaas waxaan u maleynay inay ahayd 74 luqadda Soomaaliga oo leh suugaan mug weyn ay heesaha iyo gabayada luqadda wanaagsan ay ku jiibinayaan fanaaniinta Soomaaliyeed soo jiidatay fanaaniin ajnabi ah oo iyagu ku luqeeya heeso Soomaaliya fanaaniintaas waxaa ka mid ah gabadha u dhalatay dalka Norway ee magaceeda la yiraahdo Tanya oo iyadu ku luqeysa heesaha iyadu leedahay sida heesta laqan oo ay la qaado fanaanka Soomaaliyeed Himilo waxaa sidoo kale iyaduna jirta gabadh kale oo qaada heeso Soomaali ah gabadhan ayaa iyadu ku luqeysa heesaha ay horaan u qaadeen fanaaniinta Soomaaliyeed intaa waxaa sii dheer iyaguna jira dhalinyaro asxaab la dhalinyarada Soomaaliyeed oo si wanaagsan u bartay ku hadalka luqadda Soomaaliga laba ka mid ah dhalinyaradaas oo isugu faanaya aqoontooda afka Soomaaliga ayaa fariimo isu diray iyagoo isu marinaya aaladda internetka ee YouTube Soomaaliga ugu hadlaya maxaysa ninkam qad aragteen magaciisa ka mid soo jooga labadan dhalinyarada oo ku kala nool dalalka Canada iyo Mareykanka oo ay Soomaalidu ugu kala yeedho Bashir iyo Ilyas ayaa midkood waxa uu kula dardaarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay bartaan afka Soomaaliga awgeey baa degan kii hooyaday dhalay ya isaga laba cisho guriga markii uu hayay uu soo laagay markii fahmiyada qiimaha family Soomaalidu taqaaniin Soomaalida adduunka meel kasta ku nool ee videoga daawada ee sheegay luqadda haylaayna ayidin ugu dambeyntii luqadda Soomaaliga ayaa waxay noqonaysaa sanadahan dambe in ay dad badan oo xiriir dhow la leh Soomaalidu ay daneeyaan barashadeeda Umar Cabdi Afay University of Oslo Norway